kusoo dhawaada barnaamijkii Kasbo oo aan diiradda ku saarayno buuggii saaxiibo Kasbo kaasi oo diiradda saaraya fanka la dhaqanka dadka. Bugan ayaa waxaa qoray Dale Carnegie waxaana turjumay Qareen Cabdiraxmaan Xuseen Abu Hamza. waxaadna kusoo dhawaataan qaybta labaad oo ah si aad marabka u gurato haburburin xabag barsheedka. aroortii 15 Abriil sanadkii 1985 waxaa jiibsaday Abraham Lincoln guri xun oo ka soo horjeeda golaha madadaalada ee loo yaqaan Ford isagoo sakaraadaya. markaa uu Lincoln jiifay gogashii meydka ayaa waxa uu yiri astaanto wasiirkii dagaalka waagaasi. halkan waxaa jiifa xaakinkii ugu wanaagsanaa ee adduunka u soo baxay tan iyo intii la abuuray. marka Lincoln sidee buu ku liibaanay la dhaqanka dadka ma canaanan jiray dadka markuu ahaa caruurta ee uu joogay gurigii uu ku dhashay waa canaanan jiray dadka. waliba wuxuu qoray gabayo iyo dhambaalo uu dadka ku jeesjeesayo. dhambaal ka mid ah kuwaasi wuxuu dhaliyay dagaalo socday intii uu noolaa oo dhan. xitaa markii uu noqday qareen wuxuu doonay inuu ku weeraro nacabkiisa dhambaalo lagu faafiyo wargeysyada, laakiin hal mar buu sidaa sameeyay. deertii sanadkii 1842 wuxuu si sarbeeb ah u weeraray nin siyaasi ah oo reer Ireland ahaa oo la oran jiray Limis. markuu ku qoray jees dhambaal uu ku faafiyay wargeys la oran jiray Springfield kana muuqatay in loola jeedo James Shilter oo ahaa nin dabeecad kulul. magaaladii oo dhan waxay ku qosashay caydii loo jeediyay James, laakiin James aad ayuu u carooday. waxa uu ogaaday in Abraham Lincoln qoray, waxaanu ka codsaday inuu dagaal ugu soo baxo si midkood loo dilo. Lincoln ma rabin dagaal, laakiin wuxuu ka xishooday haddii uu diido in fulaynimo lagu caayo. markii la gaaray maalintii lagu heshiiyay inay dagaal isaga hor yimaadaan webiga Mississippi qarkiisa si midkood loo dilo, wuxuu soo dhex galay labadii nin ee maraga u ahaa oo baajiyay dagaalkii. xaalkaasi wuxuu ahaa dhibicda madow ee keli ah ee nolosha Lincoln, wuxuuna ka bartay cashar lama ilaabaan ahaa xagga la dhaqanka dadka. mar dambana ma qorin dhambaalo dad lagu quursanayo ama lagu jeesjeesayo, qof dambana ma canaanan. markii dagaalkii sokeeye ka socday America, Lincoln wuxuu u magacaabay dhowr nin oo ka madax ahaa ciidamada. mid kasta waxaa lagu soo cadeeyay gafif foolxun. dad badan baa ku kacay. madaxdii gaftay oo dhaliil u jeedisay, laakiin Lincoln midna uma jeedin erey canaana. wuxuuna ku celcelinayay xikmadiisii ahayd qofna ha canaanan si aan adiga lagu canaanan. markii uu xaaskiisa u jeediyo canaan dadka degan koonfurta America wuxuu dhihi jiray Lincoln ha canaananina, waxa laga yaabaa inaan sidoo kale ku kici lahayn haddii waxa haysta ina haysan lahaa. inkastoo arrinka sidaa yahay, haddii qof la siin lahaa xaqa canaanta cid uu doono ha noqdee nin aan ahayn Lincoln, waxaanan tusaale u soo qaadan karnaa xaalka soo socda. kowdii bishii Luulyo 1863 waxaa dhacay dagaal ay isaga hor yimaadeen ciidamada koonfur iyo waqooyi goobta la yiraahdo Gettysburg. maalintii afraad waxaa jabay ciidankii koonfur oo uu hogaaminayay General Lee. markaa buu ciidamadiisii u kaxeeyay dhanka koonfureed ilaa uu ka hor yimaado webi buuxa oon la gudbi karayn. korna roob baa kaga da'ayay, gadaalna waxaa ka joogay ciidamadii waqooyi. markaa waxa uu ogaaday Lincoln in Lee madaxa ciidanka koonfur iyo ciidankiisii dabin galeen. markaasuu amray taliyihii ciidankiisa ee horfadhiyay ciidanka koonfureed inay weerar ku qaadaan si uu colkaasi isu dhiibo, dagaalkuna halkaasi ku dhamaado. laakiin waxaa dhacday in taliyihii ciidanka Lincoln keenay cudurdaaro uu markaasi ku diiday inuu weerar ku qaado ciidanka koonfureed. intii warka la isku celcelinayay ayaa webigii go'ay. General Lee iyo ciidankiisiina waa gudbeen.
Lincoln aad buu uga tiiraanyooday wuxuuna ku caro burburay wiilkiisa oo ag joogay isagoo leh ilaahayow waa maxay arrintani cadowgii gacanta noo soo galay waa fakaday wixii aan amaro bixiyay may dhaqaajin ciidankaygii markaasuu fariistay Lincoln isagoo murugaysan wuxuu u qoray taliyihii General Meade warqadda tan u malayn maayo inaad qiyaasi karto guuldaradii ka timid baxsadkii ciidankii General Lee waxay ku jireen gacanteena haddii aan qaban lahayn dagaalku halkaasuu ku dhammaan lahaa haddase waxaa hubaal ah in dagaalku dheeraan doono ilaa waqti ilaahay og yahay haddii aad weerari kari weyday ciidankii General Lee isniintiina soo dhaaftay adigoo ku gacan sareeya sidee baad u weerari kartaa isagoo webiga koonfur ka xiga adna la gudbi karayn ciidan badan lagama filaayo inaad wax micno leh qabato waqtigii dahabka ahaa waa ka tagay xaalkaas aad baan uga damqaday laakiin Meade ma akhrisan dhambaalkaasi sababta oo ah Lincoln ma dirin waxa laga dhaxelay waraaqihiisii markuu dhintay kadib aniga waxay ila tahay ayuu leeyahay qoraagu in Lincoln markuu qoray xaashida kadib istaagay dariishada uu ku yiri naftiisa bal miyirso waxa suuragal ah inaanay ii banaanayn inaan canaan kula degdego Meade maxaa yeelay way fududahay anigoo ku jira guriga cad ee dugsoon ee laga xukumo America inaan amro Meade inuu weerar ku qaado ciidanka cadowga laakiinse haddii aan joogi lahaa goobta dagaalka oon arki lahaa dhiigga qubanaya ama aan maqli lahaa taaha dhaawaca iyo jibaadka dadka nafbaxaya waxaa laga yaabaa inaan sidaa oo kale samayn lahaa haddaan xaashidan diro way iga degaysaa tiiraanyada qalbiga iga gubaysa laakiin waxay ku xambaaraysaa Meade inuu naftiisa difaaco ama la yimaado marmarsiinyo uu kaga cudur daaranayo falkiisii waxaana laga yaabaa inuu aniga i canaanto inuu ciidamada iskaga tago markaasuu xaashidii meel iska dhigay sababta oo ah waxay bareen tijaabooyinkii hore inaan canaantu waxba tarayn waxa laga soo wariyay madaxweynihii America Roosevelt markay dhibaato adag ka hor timaado inuu dhabarkiisa ku tiiriyo kursigiisa ayuu fiirin jiray sawir weyn oo loo sameeyay Lincoln oo surnaa xafiiskiisii guriga cad wuxuuna weydiin jiray muxuu sameyn lahaa Lincoln haddii dhibaatadani ka hor timaado sidee buu u xalin lahaa mushkiladan qalbiga ma ku haysaa inaad qof dabeecadiisa hagaajiso ama asluubtiisa toosiso ama aad jidka toosan ku hanuuniso haddaad arrinkaa ku talo jirto waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo aad ku mahadsan tahay laakiin maad naftaada ka bilowdid marka hore waxaana ka mid ah dabeecadda dadka in qof kasta naftiisa ka jecel yahay naf kasta oo kale waxaa laga sheegay nin la oran jiray Brown Teach haddii qofka iyo naftiisa loolan ka dhaco qofkaasi wuxuu muteystay in wanaag lagu xuso marka maxaad ka leedahay haddii aad hal sano isku shuqliso sidaad naftaada ugu dhammaystiri lahayd wixii wanaag ah iyo inaad ceebaheeda toosiso wixii sanadkaasi ka soo hara cimrigaaga aad hanuunisid dadka kale kuna toosisid asluubta wacan qaybtan labaad intaasi ayay ku dhantahay waxaana kaga hadalnay qormada ciwaankeedu yahay si aad malabka u gurato ha burburin xabag barsheedka waa Maxamed Cali Juxa oo idinkaga tagaya salaamullaahi calaykum